marmarka qaar waxaa laga yaabaa in kulankaaga koowaad ay lamaantaada uu ku dhammaado mid fashilan. miyay jiri karaan tillaabooyin kaa garabsiin kara kulankaaga koowaad ee jacaylkaagu inuu noqdo mid guulaysta? waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa 8 qodob oo xasaasi ah oo loo baahan yahay inaad ogaato si kulankaaga ugu horeeya ee lamaantaada uu noqdo mid guulaysta una muuqda mid aad u qurux badan. tallaabooyinka waxaa ka mid ah inaadan wax sawira iska qaadin inta badan dhinac kaste. si aad ah ayuu ugu soo diyaargaroowaa ballanta koowaad ee dadka guurdoonka ah, iyadoo qof kasta uu rajeynayo in halkaa ay ka bilaabato nolol guur ah oo farxad leh muddo dheerna raagta. joornaalka Refinery 29 ayaa qoray tallaabooyinka ugu garabsiin kara in kulankaaga koowaad uu noqdo mid guulaysta. 8 tallaabo oo kaa garabsiinaysa in kulankaaga koowaad ee jacaylka uu noqdo mid guulaysta. qodobka koowaad waxa uu leeyahay fadhiga koowaad waa inaadan soo hadal qaadin wax ku saabsan guurka. hadafkaaga koowaad ee kulanka ha noqdo oo keliya mid isbarasho ku salaysan. qodobka labaad waxa uu leeyahay ballanta kulanka koowaad ha aadin adigoo shaqo ku soo daalay ama mushaakilo kale ay ku haysato. waxaa lagaa rabaa in maskaxdaadu ay saafi noqoto oo weliba ay soo nasatay, firfircoonina ay kaa muuqato inaad kulanka aado. dharka aad xiranaysaa ha noqdo kuwo qurxoon oo kalifaadna aanay ka muuqan. qodobka saddexaad waxa uu leeyahay dharka aad xiranayso ha noqdo kuwo qurxoon oo kalifaadna aanay ka muuqan. qodobka afraad ayaa isaguna tilmaamaya dhanka qofka dumarka ah ma ahan in make upka ay isku soo badiso, gaar ahaan ragga intooda badani ma jecla arrintaasi. 5 haddii kulankiina koowaad uu noqdo mid casho ah, dooro raashin fudud oo dharag farabadani aan lahayn. qodobka 6aad waxa uu tilmaamayaa ka fogow nadaafadda saayidka ah si aan lagugu arkin inaad tahay qof shaki badan, si fududna u dhaqan xaaladana ha adkayn. sidoo kale qodobka 7aad ee uu daabacay joornaalka Refinery 29 waxa uu tilmaamayaa ka fogow inaad iska qaado sawir selfie ah. ha sawiran miiska aad wax ku cunayso. sidaasoo kale ka fogow inaad moobilkaaga ka isticmaasho baraha bulshada. qodobka ugu dambeeya ee 8aad waxa uu leeyahay saacadda marnaba ha eegin. waa arrin xeerka hareer marsan, maxaa yeelay waxaa loo qaadan karaa inaad fadhiga ku caajistay, sida ay wax u socdaanna aadan la dhacsanayn.